guddiga doorashooyinka ee guddoonka baarlamaanka oo kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa kulankooda ka soo saaray war murtiyeed ku saabsan xilliga ay qabanayaan araajida doorashooyinka guddoonka baarlamaanka oo dhawaan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ay ku dhawaaqeen in xilkii ay ka qaadeen guddoomiyihii baarlamaanka Shariif Xasan Sheekh Aadan war murtiyeedkan ay soo saareen xildhibaanadan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya gaar ahaan guddiga doorashooyinka ayaa waxa warbaahintu u akhriyay xildhibaan Maxamed Maxamuud Guuleed Gacmo Dheere oo xubin ka guddiga doorashooyinka ee guddoonka baarlamaanka guddiga doorashada guddoomiyaha baarlamaanka isaga oo tixraacaya taxdi qarameedka iyo xeer hoosaadka baarlamaanka ee ku meel gaarka ah isla markaana gudanaya waajibaadka loo xil saaray wuxuu go'aamiyay qodobada soo socda koow qabashada araajida u tartamayaasha xilka guddoomiyaha baarlamaanka waxay bilaabanayaan taariikhdu marka ay tahay 25 bisha December 2001 saacada subaxnimo marka ay tahay 9 waxayna ku egyahay qabashadaas araajida waxay ku egtahay 31 isla bisha December 2011 saacadu marka ay tahay 12 duhurnimo labo murashaxiintu waxay khudbadooda jeedinayaan golaha dhexdiisa ka jeedin doonaan taariikhdu markay tahay 1 bisha January 2012 tobanka subaxnimo laga bilaabo ilaa 3 galabnimo laga gaaray 3 doorashada guddoomiyaha golaha baarlamaanka waxay dhacaysaa lana qabanayaa saacadu marka ay tahay taariikhdu marka ay tahay 2 bisha January 2012 9 subaxnimo wabillahi tawfiiq waxaan rajaynaynaa dadka daneynaya haday doorashadaasha yihiin murashaxiinta iyo haday yihiin codbixiyaashada inay si dhowraan waqtigaas loogu talagalay inkastoo inta badan mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ay shaaciyeen in xilkii guddoomiyenimo ay ka qaadeen Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa haddana taa bedelkeeda waxaa muuqata in aysan wali wax ka gelin hawlihii guddoonka baarlamaanka oo isagu wali si sharci ah ku sii wata hawlihiisa shaqo